xalay waxaa dhacay arrin cajiib ah oo aan la filayn laakiin Ilaahay amray inay hergasho. Waxaan maanta daawaday muuqaalo dhowr oo laga duuduubay live-kii Daaci Mukhtaar ee hooyadiis loogu ururinayay lacag ay dhakhtar ku aado. Afar qodob oo muhiim ah iga soo baxay muuqaalada markaan arkay. Cajiib waaya wallahi dadka Soomaaliyeed. Ilaahay ha barakeeyo. أولاً hooyadaasi u soo duceeyay in Ilaahay caafimaad dhammaystiran uu siiyo. Ilaahayna dabaylaha ka raaciyo xanuunka lagu sheegay. Ilaahayna kurbada uu ka faydo. Lacagtaasna ay u noqoto mid Ilaahay albaabada farajka ugu furo insha Allah ta'ala. Afarta qodob aan ku arkay halkaas waxa weeye أولاً nasabnimada dhabta ah iyo dadnimada qiimaha leh ee reer Soomaaliland leeyihiin. Waa ogaad. Daaci Mukhtaar hadda ka hor dhacdooyinkii hore la sacaanood ka dhacay waa asagii tuutaha xirtay isagoo dhahaya Soomaaliland waa necbahay wixii la midka laakiin maanta taasi may safiirin dadkii xoolaha bixinayay kamid ahaayeen dadkii dhalinyarta ay ku ugu caansanaa qayb kamid oo live-ka la saarnaana waa ku jireen waxaasi lama xasuusan waxaasi ayaamihii dagaalka ayaamihii wareerka ayay kamid ahay waa laga soo tagay inay sacuqdada aqoon dadkaas inay dad nasab yihiin in dad Ilaahay barakeeye ay yihiin maanta horaan oo oga laakiin maanta si xaqiiqsan anoo macluumaad ba ka hayn dadkaas ayaan ba awalba iska jeclaa maalinta ka dambaysa waa si jeclaanaya Allah barakeeyo reer Soomaaliland عقدد يدد مارته وحوق هاين أوركا ما يقارنا بقرب سيان والالكودي الله أكبر مد اللباد وأنا قاعد وحوي سومالي مركي نقطة تمادو تاجرة تمادو ما تقارن قبيلة دا هذا أينو كشق يصنع أينو سكوت كنت قالنا ولا إلهوية صرت أيضا كوباد ماشى كواركي صرت اللباد عجيب كا وحوي dhalinyarta aanu dhahno waa qaloocan yihiin oo masaana yihiin oo iska dhalinyarnimada inay falowiyada badan haysta kumaanka boqolaalka kun iyo malaayiinta haysta inay yihiin dadka hormuudka dhalinyarada Soomaaliyeed inay barahan bulshada ayaga hogaamiye ka yihiin TikTokna waan ogaaday maanta ogaaday inta dhalinyarada ay garab siisay Allah khayr siiyo waa wada ducaynaya Allah idin barakeeyo ee goodgeyso kamid ah oo kaariye kamid ah oo Bilal Bushaw oo kamid ah oo Jabra oo kamid ah oo dhalinyarti kale ay kamid yihiin ee aan magacaabeynay tobanaanka ee aad uga garanaysaa ee aynu dhahno waxaan waa iska ciyaal maala yaani waxba laba jooga waxba dadka uma soo gudbiya faa'iido maanta ogaada dadka inay faa'iido u hayaan wadaad u soo fariistay sheekh u soo fariistay Daaci Mukhtaar ma jiro yiri kaalmeeyo wax siiyo ma jiro siyaasi u soo fariistay ma jiro nin kale hogaamiye oo caan ah oo bulshada magac ku leh u soo fariistay ma jiro waa dhalinyarada yar-yarka ee basiidka ee iyaga laga yaabo inay waxba haysan laakiin shaashadoodii u soo mariyay boqolaalkii kuna ku xirnaa baray ku celceliyay kadibna kumaankum dollar uga ururiyay Ilaahay haydan barakeeyo wallahi meeshan ayagu inay ka yihiin kaabe maanta ogaaday cid kale garab siisay Daaci Mukhtaar ma jiro bal dhalinyarada qaar kamid oo ku dhagaraan jiray asagu oo duri jiray baba safka ku jiraba عقدد ما يقارن Soomaalidu marka waa sirta kala ay meesha ka fahmay dhalinyarada marka Soomaaliyeed ha sahlanina wallahi waa junuud waa ciidamo meel fadhiya maalinka loo baahdo meel bay kaaga soo baxaya sirta kale waxa weeyaan ogaaday dhalinyarada dhamaantood ragooda iyo dumarkooda ee qaar laga yaabo inay soo gudbiyaan muuqaalo qaar ay jeclaysan ee laga yaabo qaar Daaci Mukhtaar inuu ku dhagaraan jiro wax ka sheegi jiray maantaan ogaanay inay waxtar badan leeyihiin wanaagsan yihiin Daaci Mukhtaar bay marka arrintan ay khusaysaa dadkii saas ugu dhagaraan jirtay waa dadka iyo kuwa ka agdhawaaba waa kuwa maanta garabka ku siiyay waa kuwa Soomaali maanta kugu soo jeediyay hadda kadib xataa hada mid khalad iyo waxyaalo u sameeyo luuqa u gor walaalow saas ma fiicna iska dhaaf kaliya adadaygi badna saanata jooji maanta aad ogaatay runta aad ogaatay Daaci Mukhtaar maanta aad ogaatay dadka garabka ku maalinta dhibaatada la ogaadaa saaxiibka maalinta dhibaatada waxa la ogaadaa qofka runta ee dhabta ah dhalinyaradii TikTok ku jirtay dhalinyaradii qaarkood ku dhagaraan jirto laga yaabaa inaad wax ka sheegtay dhalinyaradii yaani hawshood bas ka wada garanaysaan waad aragtay maanta meesha kaaga soo baxeen wadaadada away siyaasiyiinta away odayaashii away meesha kaaga soo baxeen waad aragtay ma sha Allah marka hadda kadib اسلوبكاada ina badali doonto waan rajeynaya insha Allah ta'ala dhalinyarada sahlaneen gabar iyo wiilba waxooda khaldan ayaga sameeysanaya laakiin waa bulsho caadi ahayn maalinta loo baahdana meel ka soo baxay qaarkood waxa ku jiray qaar asaga is afgaafay oo garab u ahaa oo aan dhihin shala saas ay yiraahdeen uqta Soomaali ma taqaan marka asrima cajiib ay iga soo baxay marka Soomaaliya Ilaahay Allah idan barakeeyo intii walaalkaasi taageertana Allah taageero Allah waaba taageerayaaba dhalinyaradaasi koow ka yihiin ummadda Soomaaliyeed ee wax u diray walaalkaasna hooyada Allah caafiyo Ilaahayna subhanahu wa ta'ala soo faraxsan ha ku soo celiyo shaashada markale insha Allah ta'ala ay Soomaaliya
oo ducaynana dhamaantina u duceeyo hooyadaas xanuunkan Allah inuu ka dulqaado Soomaaliyana waxaad ogaateen dhalinyaradaas inay yihiin jiil muhiim ah oo naga qarsoona laakiin anaga khaladkooda iyo dhalinyarnimadooda iyo dhacdhacooda aan fiirinay iyo gabadha xijaab xirnay gabadhii oo dhan baa shaashadii soo saartay oo muuqaaladii u soo dhigay oo ka hadlay oo fiirsada cid kale oo ka hadashay yani saameyn bay dadka leeyihiin awal ma malin jir bas aanay saameyn leeyihiin waayda salaam aad baan u mahadsantiin Allah idan xafido walaalkaas waa ka farxiseen ilaa uu sujuudu shukri la dhacay waad ka farxiseen meel baan uga soo baxdeen uu idin ka filay dad uslaha waliga kuwan ku taageeray meeya waqtiga marka daruufta lagu kala ogaada dadka maalintaas ku kala baxaysa aad u mahadsantiin Allah idan xafido jazaakumullahu khayran